carruurta ayaga caloosha ku jiraan ma la daweyn karaa? Yes. Okay. Waa la daweyn karaa. Actually, one of the things so hadda anaga aan samayna as pediatric cardiologist waxay tahay obstetrician are mostly daba raaca oo yani ilmaha markuu obstetrician waa dhakhtarka oo dumarka gynecologist iyo obstetrician la dhahaa way kala duwan waa isku mid but waxyar kolley dadka ma kala fahmaan anaga laakiin waa kala fahmayna but more or less qofkii trainingka obstetrician and gynecologist sameeyay waa the same training way waa the same way hadda anaga waxaan dhahnaa pediatrician and child health specialist waa more or less the same thing so ayagaa la dhiilgaraya but if they find any problem hadda for example aniga dhakhtar wadna ahay haddii obstetriciankii cunugio 26 weeks ama 4 bilood manahaya ama 5 bilood manahaya uu cillad wadnaha ku sheego annagu noo soo rifaa garayn now we have to follow it from there computer aan saarayna waan fiirinayna now we can guide them on what to do sometimes even the way hadda alxamdulillah caalamka la gaaray in my training hadda cardiology markaan sameynayno kale you can intervene cunugio oo actually 5 months jira problem wadnaha lagu arkaa you do a procedure ayada uurka ku jirto and you solve the problem cunugi by the time uu dhalanayaba haadkiisa normal way so that is where we have reached. Ku jiro Yes. 5 bilood jira asagoo 5 bilood hooyadiis uurkiisa ku jira ma 5 bilood dhalanya you can intervene warka wadna ma qaba wadna uu qaba wadnaha by the time uu cunuga 8 weeks pregnancy waa roughly waxaan ka hadlaynaa something less than 2 months by the time uu jira wadnihiisa more or less waxa way ready way that must be a very tiny yes it is waxa si qalisi yes procedure loo sameeyay waa for tiny baby wow